السلام عليكم أصحابتا maraykanka masiibooyin dabiici ah ayaa ilaahay ku halakeynaya waxaan filayaa inay tahay dhibaatada ay ku hayaan shacabka Gaza oo gaajaynta iyo xasuuqa ay Israa'iil gacanta ay ku siinayaan jimcihii waxaan ogeyn daadadkii xoogganaa iyo fatahaadii webiga Guadalupe uu ku sameeyay baadiyaha bartamaha gobolka Texas oo ilaa hadda dhimashadu ay 110 kor u dhaaftay 170 dad ka badan nolol iyo geeri ilaa iyo hadda muddo 6 maalmood kadib lagu laayahay waxa haddana shalay ka dhacday gobolka New Mexico oo isaguna gobol buuraley ah in daadad kale ay ku dhufteen isla markaana la arkayay 30 daqiiqo gudahood roobab xoogan oo da'ay in webiyaashii xitaa eberka ahaa ay buux dhaafeen oo 30 daqiiqo gudahood 20 feet ay biyaha ay ku gaareen waxa ilaa hadda la sheegayaa 3 qof inay ku dhinteen sida muuqaaladan aad ka aragtaan waa webiga ama daadadkaasi oo ku dhuftay New Mexico gaar ahaan Rodeo magaalada la yiraahdo magaalo buuraley ah meelaha loo dalxiiska taga webigii ayaa daamanka jabsaday isla markaana sidoo kalena waxa la arkayay isagoo guryo sito sidaad arkaysaan muuqaaladan guryo dhan ayuu horay u qaatay dhimashada 3 qof ayaa la leeyahay guryo fara badan ayaa ku burburay daadadku xitaa mudslides ay wateen dhiiqo buuraha ay ka soo dejiyeen iyo geedo waxyaabo fara badan ay wataan sida halkan aad ka arkaysaan waxaan ognahay sidoo kale dabab inay ka socdaan Utah iyo California duufaano ayaa jira tornadoes oo meelo badan baabiya hadda seasonkii tornadada ayaa laga baxay seasonkii duufaanada xoogan ee dabaylaha iyo roobabka watay ayaa hadda la galay maraykanka waxa waa xilliga kuleylahana uma fiicno xilliga qabowgana uma fiicno xilliyada kalena uma fiicno markastaba masiibo dabiici ah ayaa meel ka dhacaysa gobolada hab u kala nuglaadaan hadda xilligii duufaanadu ay bilaabanayeen xoogan oo dhinaca badaha ka imaanayay ayaa la joogaa gobolada dhinaca badaha ku taydsan ayaa hadda wadnaha farta lagu hayaa roobabkan xoogan lama saadaalin karo halka ay ka da'ayaan Texas ayay ahayd waxaan arkaya sidoo kalena North Carolina gaar ahaan Durham magaalada la yiraahdo sidaad arkaysaan guryihii roobka ayaa biyo daadada ayaa qariyay halka ay u joogaan wad arkaysaa iyadana 2 maalin ka hor ayay ahayd haddana waa New Mexico 6 maalin ka hor Texas ayay ahayd marka waxaad u malaysaa in masiibooyinka dabiiciga ah ay aad u soo fara badanayaan xilli waliba madaxweyne Trump uu hadda leeyahay hay'adda maareynta masiibooyinka sida wasaaradii waxbarashada uu meesha uga saaray waa in laga saaraa awoodana gobolada gacanta loo galiya oo iyaga lacagaha toos loo siiya masiibooyinka dhacana iyagu ay maareeyaan arintaasi oo dad fara badan ay leeyihiin ma wanaagsana dawladda dhexe markastaba lagama maarmo hay'adda maareynta masiibooyinka wasaaradda amniga gudaha ayay hoos tagtaa marka masiibooyinkan dabiiciga waxay u muuqdaan kuwa maalinba maalinta ka dambaysa bilba bisha ka dambaysa sanadba sanadka ka dambeeya in ay ka sii darayaan ilaahu anaga dhex joognay ha nagu halaagin laakiin maraykanka waxyaabaha ka soo socdo wax yar ma ahan waa sidaad arkaysaan hadda daadadka New Mexico shalay ku dhuftay gaar ahaan Rodeo magaaladaasi la yiraahdo daadad waxay ahaayeen roob da'ay isla markiiba webiyaashii qalalnaa xitaa ay buux dhaafeen sida sawirka aad ka arkaysaan webiga waxaad arkaysaa isagoo ebera wax yar kadibna 30 daqiiqo roobkii da'ayay webigii oo waxaad arkaysaa buux dhaafay oo aadna garan karinba meeshan webi may ahayd mise meel caadi ayay ahayd arrintaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo waxyaabaha kale ee soo kordhay waa idila soo socodsiin doonaa stay tuned aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta